السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبها جعلك قيبت كوات جعلك الله سبحانه وتعالى جعلك اللي معهن هذل ايوا فعل رالي أهانشها الله وإن قف كستا اسكو مشغوليا انت نول هاي ويل dhalinyaro ah baa waxa uu rajayn jiray in uu alle socdo hareerihiisa waxa uu rajayn jiray in mar uu dareemo alle oo la jira wiilkii waa uu hurday wax uu hurdadii ku arkay isagoo xeebta socda wax uu arkay wax hortiisa socda iyo kuwa kale oo garab socda kadib waxa uu maqlay cod oranaya calaamadani waa aniga ayaa ku jecel mar kasta haddii aad noqotid mid liita waan ku xoojin haddii aad xanuunsatidna waan ku shaafin haddii aad faqiir noqotidna hani baan kaa dhigi aniga ayaa ku jecel in ka badan inta aad suuraysanayso waxaa kaloo jiray nin jeclaa in uu alle baryo kuna weyneeyo qaab aan cidna ugu yeerin inta uu ducadii ku jiray waxa uu arkay oday garab fadhiya dharkiisu cad yahay garkiisuna cad yahay allana ku baryaya duco aad u macaan ninkii waxa uu xifdiyay ducadii odayga kadibna waa uu eegay si uu uga mahad celiyo ducada qurxoon ee uu ka maqlay laakiin wuu waayey ninkii wuxuu aaday nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uuna u sheegay wixii uu la kulmay nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yiri ninka aad ducada ka maqashay ma taqaanaa ninkii waxa uu yiri ma garanayo rasuulka allah nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yiri ninkaasi waa jibriil waxa uu kugu yimid sidoo ku bari lahaa sida alle loo weyneeyo oo loona bariyo iyo sida alle loogu weyneeyo waxa uu jecel yahay waxay ahayd tallaabadii ugu horeysay ee uu ninkaasi qaaday waxa uu doonayay weynaynta alle waxa uuna alle u soo diray malaa'igta kii ugu weynaa si uu u baro ducadaas qaali ahaanshaha alle waa inay noqotaa wax uu isku mashquuliyo insaanka ilaa dadka qaar ay yiraahdaan garashada alle weyne ayaa ka muhiimsan wax kasta arrimaha soo harayna waa dheeraad waxaan ognahay in alle subxaanahu watacaala leeyahay 99 magac ruuxii koobaana jannada ayuu galaa muslim kasta waxaa ku waajiba inuu xifdiyo magacyada alle macnahoodana barto kadib waxa uu yaqiinsanayaa waxa uu alle ku sifeeyay naftiisa tusaale insaanku hadduu ogaado in alle subxaanahu watacaala yahay rasaaq uma habboona inuu risqi ka dalbo alle mooyee ruux kale waayo wax uu og yahay in risqigiisu samada u jiro oo uusan dunida aalin insaanka had iyo jeer alle xiriiriya kuma dhacdo murugo haddii dhib uga dhaco jirka banaanka ahna wax uu alle ka rajeeyaa khayr iyo wanaag